barnaamijkan soo gudbintiisa waxaa idiin sahlay abka dilaal. haddaba ha moogaan abka dilaal. jamaal axmed xamza kashoqji waa muwaadin u dhashay dalka Sacuudiga. wuxuu dhashay 1958 kuna dhashay magaalada Madiinatul Munawwarah. wuxuu ahaa wariye iyo qoraa marar kala duwan ka soo shaqeeyay warbaahinta dalkaasi Sacuudiga. jamaal wuxuu mar noqday la taliyaha reer boqor, sidaasi oo kale awowgii Maxamed Kashoqji wuxuu ahaa dhakhtarkii gaarka aasaasihii boqortooyada Sacuudiga Cabdulcasiis Aala Sacuud. dadka aadka ugu xeesha dheer abla-ablaynta iyo dabagalka taariikhda waxay sheegaan in jamaal reerkiisa asalkoodii hore ay ka soo jeedaan Turkiga, gaar ahaan magaalada Kaysari ee dalkaasi Turkiga. haddaba magaca Kashoqji wuxuu macno ahaan afka Turkiga ku noqonayaa midkii sameynayay qaandadii diamondka ah. jamaal wuxuu dalkaasi Sacuudiga isaga baxay Sebtembar 2017. ma aha nin mucaarad ku ah boqortooyada Sacuudiga oo dhan. wuxuu ahaa nin aad u jeclaa waddankiisa, laakiin sababihii uu isaga cararay waxaa ka mid ahayd markii uu cadaadis dhinacyo badan taabanaya uu kala kulmay wiilka uu dhalay boqor Salmaan, waa Maxamed bin Salmaan waxaana laga xiray bartiisa Twitterka kadib markii uu dhaleeceyn u soo jeediyey ina Salmaan. waan rajayn lahaa inaan noqdo la taliye aamin ah oo dowladda la shaqeeya, laakiin ma awoodo inaan ka dhex shaqeeyo siyaasad aan ku qanacsanayn. hadda xaaliyan marxaladaydu waa mid degan. waxaan dowladda ka qoraana waa wax nasteexo u ah dowladda, midaasina waxay faa'iido u tahay dhammaan dadka oo dhan. hadda anigu waxaan ahay shakhsi xor ah, mucaarad ma ihi, dowladdana kama soo horjeedo, alle ayaan ka magagalay taasina. laakiin waxaan ahay qoraa qoraya waxa damiirkiisa diidaya. أنا مجرد كاتب يقول ما يمليه ضميره. Kashoqji waa ninka kaliya ee aanan ka mid ahayn reer boqor oo haddana ogaa waxa ka dhex socda boqortooyada. wuxuu aad ula socday xiriirka ka dhexeeya reer boqor iyo Usaama bin Laden, gaar ahaan kolkii dagaalkii Soofiyeedka uu socday. sidaasi oo kale jamaal laf ahaantiisa wuxuu marar badan la kulmay hogaamiyaha Al-Qaacida Usaama. wuxuu ka qaaday wareysiyo dhowr ah waa intii aysan dhicin weerarkii 11 Sebtembar. kulamadaasi uu la qaatay Usaama, dowladda Sacuudiga iyo wadamada reer galbeedka aad ay ula socdeen, isla markaana u taageeri jireen hoosh uu hayo Usaama, gaar ahaan Mareykanka oo aad u taageerayay dagaalkii looga soo horjeeday Soofiyeedka. wuxuu sidaasi oo kale warar ka soo tabiyay dagaalkii koowaad ee Khaliijka iyo dalal kale sida Jazaa'ir iyo Suudaan. haddaba kulamadii uu la qaatay Usaama waxay u muuqdeen kuwa loo kala dabqaadayay Usaama iyo reer boqor. wuxuu marar badan ka soo muuqday shaashadaha warbaahinta isaga oo sita qori una labisan sida ururka Taliban, inkastoo jamaal uusan markaasi ku biirin ururadaasi ka jiray Afghanistan. sawirkana wuxuu u galay mid xasuus ah, inkastoo xilligaasi qofkii qori qaata uu ahaa jihaadiste oo reer galbeedka aad u taageersan, halka maanta lagugu yeerayo argagixiso. dhanka kale jamaal waxaa la sheegaa inuu aaminsanaa fikradda ururka Ikhwaanul Muslimiin, ama xitaa ugu yaraan uu ku biiray ururkaasi. wuxuu marar badan soo jeediyey in ururka Ikhwaanul Muslimiin lala heshiiyo oo dowladda Sacuudiga xiriir wanaagsan uu dhex maro, midaasi oo keeni karta saaxiibtinimo iyo siyaasad wanaagsan oo dunida islaamka lagu hago. haddaan u laabanno shaqadii uu saxaafadda ka hayay, jamaal wuxuu taftiro ka noqday wargeyska Al-Wadan sanadkii 2003. waxaanan ka badnayn 2 bilood kadibna shaqadii uu wargeyska ka hayay waa laga eriyey. amarka shaqada looga saaray wuxuu ka yimid wasiirka warfaafinta dalkaasi, kadib markii uu jariiradda ku daabacay dhaleeceyn uu u soo jeediyey daacigii geeriyooday Ibnu Taymiyah, midkaasi oo ka mid ahaa raggii aasaasay fikradda wahaabiyadda. inkastoo jamaal laf ahaantiisu aad ugu beerjilicsanaa ama taageersanaa fikradda wahaabiyadda, waa sida la sheegay ama alle ayaa iga ogaal badan. haddaba Kashoqji wuxuu ka soo shaqeeyey marar kala duwan safaaradaha Sacuudiga ay ku leedahay London iyo Mareykanka. wuxuu mar madax ka noqday TV-ga Al-Arab News Channel, midkaasi oo xaruntiisa ay ahayd dalka Bahrain, waxaana lahaa Amiir Dalaal. laakiin nasiib daro 12 saacadood markii uu hawada ku jiray waxaa mar qura hawada ka saartay dowladda Bahrain. jamaal iyo xiriirka ka dhexeeya boqor Salmaan wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan.
waxayse sheekada jamaal isbeddeshay markii uu xilka qabtay wiilka uu dhalay boqor salmaan maxamed bin salmaan, midkaasi oo isbeddel xoogan ku sameeyey siyaasaddii dalkaasi sacuudiga, isla markaana gacantiisa ku soo koobay dhammaan awooddii boqortooyada oo dhan. halkaa markii ay marayso, markaan dareemay inaan mucaarad ahay oo taleefon uu shakhsi iga soo wacayo iyo amrayo inaan qoro waxaasi ama waxaasi aan sameeyo, ma qaadan karo shakhsiyan. waxaan hubaa saaxiibo aniga oo kale ah inaysan aqbalayn taasi. qaarkood way isdhiibeen oo fikradoodii waa ay beddeleen. jamaal ayaa maxamed bin salmaan ku dhaleecayn jiray faragelinta uu ku hayo siyaasadda dalka yemen iyo weerarada sacuudiga iyo xulafadiisa ay ku hayaan yemen. wuxuu sidaasi oo kale kaga soo horjeeday xiriirka xun ee kala dhexeeya iiraan. haddaba jamaal ayaa dhowaanihii ugu dambaysay ka soo muuqanayay shaashadaha tiiviyada caalamiga sida aljaziira, BBC iyo CNN-ka, isaga oo dhaleecayn u soo jeedin jiray maxamed bin salmaan oo keliya. ugu dambayntii, jamaal ayaa dhowaanihii ugu dambeeyey ku noolaa dalka Turkiga, wuxuuna halkaasi ku qadiibtay gabar u dhalatay dalkaasi Turkiga. jamaal ayaa qunsuliyadda Sacuudiga u doontay waraaqaha nikaaxa ee rasmiga ah, isaga oo banaanka qunsuliyadda kaga tagay saaxiibtii una dhiibtay labadiisa moobayl. jamaal oo awalba cabsi ka qabay ayaa galay qunsuliyadda. Khashoggi markii uu galay xafiiska qunsulka Maxamed Cutaybi, waxaa u soo galay rag doonaya in jamaal ay qaarajiyaan, waxaana la sheegay inay cirbad ku dhufteen kolka hore si aanan qunsulka looga shakin. sida ay sheegeen sirdoonka Turkiga, ninka meydka jamaal Khashoggi cadcad ka dhigay Salaaxu Dubayqi waa ninka meydka u qaaday qol kale oo qunsuliyadda ka mid ah. laakiin dambibaarayaasha Turkida ayaa aad u baaray waxa meesha ka dhacay, halka ragga Sacuudiyiinta ay masaxeen dhammaan raadadkii dilkaasi muujin lahaa. sidaasi oo kale meydka Khashoggi waxaa looga shakiyey in lagu aasay guriga qunsulka. jamaal oo cabsi xoogan ka qabay qunsuliyadda ayaa inta uusan gelin shitay saacaddiisa Apple-ka si uu u duubo codadka meesha ka socda. kolkii la dilayna codadkii meesha ka socday ayay saacaddii ku kaadisay iCloud-ka moobaylkiisa. qaarijinta jamaal ayaa looga shakisan yahay in ay geysteen 15 qofood oo ka mid ahaa sirdoonka dalkaasi Sacuudiga. haddii aan doonayo inaan Sacuudiga ka shaqeeyo, waan ka helayaa shaqo. waxaan kuu sheegay inaan Sacuudiga ka helay taleefoona layga soo wacay. waxaa ii muuqata fursado aan ugu laaban karo dalka, laakiin ma awoodo inaan ku laabto, waxaanan ku qanacsanayn.